السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي مع الأفتاح جامعة بكر شكدا نساء سوفت وير يعني قاه مع الأفتاح جامعة بكر waxaynu kusoo guda jirnay oo casharkeena darsigeena uu ku saabsanaa luqadda carabiga ahayd waxaynu ugu soo dambeeyay haddii aad xusuusataan ficil maxaa la yiraahdaa maxay ahayday imise u qaybsamaa guud ahaan ficil waxaa la yiraahdaa dhacdo kasta oo dhacda oo la xiriirsanta waqtiga kala duwanaanshihiisa ama ha noqoto wax tegey ama ha noqoto wax jooga ama ha noqoto wax soo socda qaybihiisa kale waxaynu kusoo sheegnay haddii aad xusuusataan ficil maadi iyo mudaaric iyo amar wax la yiraahdo ficil ka hadla wax tegey iyo mid ka hadla wax jooga iyo mid ka hadla wax soo socda halkaas aynu ugu dambeysay caawa casharkeenu wuxuu noqon doonaa insha allah calaamaatul ficil maxaa lagu gartaa wuxuu inuu ficil yahay wuxuu inuu dhacdan yahay wuxuu wax dhacay inuu yahay calaamadaha lagu garto muxuu yahay calaamadaha ficilka lagu garto sida halka idiga muuqata halka ciwaankeena ugu yaala aad aragtaan calaamaatul ficil balaan aragno lilficli calaamaat tumayizu can gayriha ficilku wuxuu leeyahay calaamada uu kaga soocan yahay kuwa kale ficil uu kaga soocan yahay isimka magaca uu kaga soocan yahay xarafka calaamado u gaar uu leeyahay balaan aragno calaamadaha ficilka uu kaga soocan yahay waxyaalaha kale haddii aad ila eegtaan khiyaare waxaa ka mid ah kow an tatasila bihi taa'ul faacil ficilka waxaa raacda ta la yiraahdo wax ta la yiraahdo oo macnaha waa maxay ficilka waxa u dambeeya oo qofku markuu naftiisa ka hadlayo waliba gaar waxay ku tahay qofku markuu isagu iska hadlayo adigu marka aad leedahay inaad tiraahdo maxay marka aad rabto inaad tiraahdo waxbaan cabay waxbaan cunay waxbaan dilay khasab waa in ficilkaas aad maxay ahayd isku sheegaysa isku tilmaamaysa inaad wax samaysay waa inay ta u dambaysa waliba ta'di dheerayd ta ul maftuuxa la oran jiray marka wuxuu jiri ka koowaad an tatasila bihi ta ul faacil waa inay la xiriirsantaa ficilkaad adigu samaysay aad sheegaysa waa in la raaciyaa ta xarafka ta waa in la raaciyaa waliba ta'daas oo sheegaysa faacilkii cidii wax samaysay misla tusaale waa maxay qara'tu waan akhriyay okay ta baynu raacino ugu dambaysiinay qara'a ficil maadi bay ahayd waxaa ka dhigay markaa ficil mudaaric waxaa ka dhigay hadeer le waa ficil mudaaric waxaa ka dhigay inaad wax akhrinayso waa maxay ta'daas sheegaysa sida awgeed ta'daas waxay ka waramaysaa ta'da yar halka ku taala ta'da yar halka ku taala waxay ka waramaysaa maxay qofku inuu yahay maxay qofku inuu isagu wax akhriyay bay ka waramaysaa ta'da yar halka ku taala qofku inuu isagu wax akhriyay bay ka turjumaysaa waatan samictu oo kale waayahay sharibtu oo kale samictu waan maqlay sharibtu waan cabay qara'tu waan akhriyay ta'daas marka adiga ka turjumaysaa cidda akhriska samaysay ficilka samaysay waa adiga cidda wax maqashay waa adiga cidda wax cabtay waa adiga waay ficilkaasi markaa waa in ficilka qofku markuu isagu iska hadlayo uu raaciyaa wax la yiraahdo maxay ta waa inuu raaciyaa waayo ta'daasi waxay ka turjumaysaa maxay aday ka turjumaysaa sidaa awgeed waa khasab qofku inuu maxay markuu isagu iska hadlayo uu ta'da raaciyo calaamada labaad ee lagu garto ficilka waa maxay an tatasila bihi ta'u ta'niis as-saakina waa inay ficilka raacdo ta'niis ta'dii la raacin jiray dumarka la raacin jiray ee waliba reebanay ta'dii reebanay ee dumarka la raacin jiray oo dumarka marka laga hadlayo ficil ay sameeyeen ama isimkooda inta badan waxa raacda wax la yiraahdo ta baa raacda oo ta'daasi waxa la yiraahdo waa ta'dii dumarka la yiraahdo okay tusaale waa maxay xaliimatu faadimatu waa magacyo dhammaan haddana maxaa raacay ta baa raacday waad aragtaan ta'da yar halka ku jirta bilaash meesha kuma jirto waa ta okay marka ta'daasi waxay ka turjumaysaa waxaas inuu yahay maxay cidda wax samaysay inay tahay dumar waayo khasab ta'daasina marka waa inay raacdaa hadday isim iyo magac tahay iyo hadday ficil tahayba ta'daas dumarka kama hadho calaamada saddexaad ee lagu garto maxay ficilka waxaa ka mid ah inay raacdo wax la yiraahdo nuun tawkiid nuunta wax lagu adkeeyo oo nuuntaasi waxay sheegaysaa waxaas inuu ficil yahay waxay sheegaysaa waxaas inuu ficil yahay marka la adkeeyo oo meel kasta aad aragto adayg la geliyo ama nuun lagu adkeeyay macnaheedu waa maxay meeshaas waa ficil aan aragna bal waliba ficilkaasi wuxuu noqonayaa maxay ficil amar buu noqonayaa okay isbiranna sabir bali isbiranna sabir waaye isbiranna sabir waaye gabadh yahay sabir okay isxabanna qaad ama jiid waaye okay uskunanni waaye deg gabadh yahay halkaa deg waaye marka maxaa laga wadaa nuuntan halka inooga muuqata la yiraahdo nuun tawkiid nuuntan waxay ka turjumaysaa maxay ficilkii waa inaga adkanay isxabanna waa inaga isxaban maan odhan isxaban haddii la fududeeyo wax kale noqon lahay
laakiin waynu adkayna sida awgeed nuuntaas maxaa loo yaqaanaa nuunu tawkiid taasa nuunu tawkiid loo yaqaanaa nuuntaas la adkeeya sida awgeed dhammaantood waa kuwan ku wada jirta isbaran isbiranna isxabanna uskunanna waayo dhammaantood waad aragtaan oo nuunu tawkiid baa leeyahay ficilkayna raacdaa magac ay raacdo weli la arki maayo mana dhacdo inta badan ka afraad ee lagu garto ficilka waa maxay inay raacdo an tatasila nuunu niswa dumarka sidoo kale waxaynu soo sheegnay inay raacdo ta haddana dumarka sidoo kale waxaa calaamadaha gaarka waa dumarka lagu garta ka mid ah nuun la yiraahdo nuunu niswa nuuntii dumarka okay calaamadaha dumarka la raaciyo aad bay u tira badan yihiin nuunu niswa ka mid ah nuuntii dumarka ah maxay ahayd taa u ta'niis baa ka mid ah ta'dii dumarka niswa iyo ta'niis waa isku mid labaduba dumar bay ka tarjumayaan nuuntana inta badan dumarka waa la raaciyaa ilaahay subxaana watacaala markuu ka hadlaya wuxuu leeyahy ina kaydakunna cadim kaydakunna cadim suuratu yuusuf maxaa la raaciyey nuun baa la raaciyay maxaa la yidhi kaydakunna cadim meesha marka maxaa galay nuun baa gashay kaydakunna cadim dabcan aayad bay ahayd aayad quraan suuratu yuusuf ku jirta waxaa ka horreysay maxay ina la horreysiiyey oo lagu adkeeyey waxaas inuu dumar yahay baa la sheegay kayda kunna ficilkoodina maxaa lagu daray ficilka ay samaynayeen khiyaanada ahayna maxaa lagu daray nuun baa lagu daray waaye ilaahay weli wuxuu yihi cadiim waa wax aada u sii weyn runtii marka nuuntaana dumarka waa la raaciya marka dumar la sheegayo okay niswa waaye kayda kunna ilaahay oo kayr marka calaamadaha lagu garta bay ka mid tahay ficilka weliba waa ficil maxay ahayday maadi dhagartoodii khiyaanadooda hore u sameeyeen markuu ilaahay ka hadlayay maxay nabiyullaahi yuusuf iyo xaaskii boqorkii ilaahay kala xukumayey waxay dumarku khiyaano badan halska waaye number 5 an tatasila bihi ya al-mukhataba ficilka waxaa raacda ya la yiraahdo ya al-mukhataba ya ma garanay mukhatabana waa cid lala hadlayo mukhataba ya waaye yaadi cid lagu la hadlayay ya al-mukhataba iyo nuswa nuun nuswa iyo nuun tawkiid nuun ta tanis iyo ta al-fa'il dhammaantood ficilka raacaan weli magacay raaceen oo maxay ahayd ay la xiriirsadeen lama hayo ilaahay sida awgeed waxaynu leenahay tusaalayaashu tasnaciina waad samaynaysaa oo yaa mukhadabada aan u jeedo waa xagee yaa mukhadabadu waa yaa yar halka inaga muuqata tasnaciina nuuntuna de nuunta ficilka raaci jirto waad garanaysaan tasnaciina waad samaynaysaa macnaa ilaahay dumarkii waa lala hadlaya tadaciina waa dhigaysaan soomaartaan tadaciina waa dhigaysaan waaye ama uurkii ha noqdo ama wax kale ha noqdo waaye waa dhigaysaan ama maxay waad samaynaysaa marka dhammaan shanta calaamadood shantaba waxaa lagu gartaa ficilku noocu yahayba ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo ama amar ha noqdo kulanti wanaagsan oo xisila mar kale dadaal wacan baad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi